madax ka socotay maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Ali Saciid Fiqi oo uu heliyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa waxay gaareen degmada Awdeegle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo dhawaan laga xoreeyay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. wafdigan hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiisha kala duwan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hogaaminayo taliyaha ku-xigeenka ururka 143 ay 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha ayaana ugu horeyntii wafdigan oo warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose sidii ugu guuleysteen. deegaanka degmada Awdeegle ugu soo booqday gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ana madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax iyo taliyaha Amazon taliyaha Amazon sectorka marka aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta difaacan la joogaan oo u dhirigeliyaan qabashada degmada Awdeegle marka waadi mar labaad aad iyo aad u maasantiin. dhankiisa waxaa asaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax isagoona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uga mahad celiyay sida nafurnimada leh oo Al-Shabaab ay uga xoreeyeen degmada Awdeegle. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka guud ahaan gobolka ka howlgala si gaar ah kuwa runtii deegaankan iyo degmadan iyo nawaaxigaanba ka howlgala sida ay shaqada wanaagsan uga qabteen muddadii ay halkan joogeen. waxaan u rajaynaynaa insha Allah taala inta howlgalkooda ka dhiman inay dhamaystiraan oo kooxdan qawaariijka ah ee degmadan Awdeegle shacabkeeda dhibaateeyay guryahooda gubay barakiciyay meel walba oo qof Soomaaliyeed oo muslim ah oo nool uu ku badbaadi lahaa oo dhan ka soo xirxiray dadkii qaxooti ka dhigay in deegaanadaas laga saaro intii yar ay kaga sugan yihiin. annagana garab ayaan idinku leenahay insha Allah taala guushaas weyn iyo shaqadaas wanaagsan ee adduunyada iyo aakhirada u wanaagsan waxaan rajaynayaa mar dhow inaad ka maradhalaysaan insha Allah taala howlaha aad wadaan ilaahay idinkiis guul weyn ayaan idinkaga rajaynayaa mar walba anagoo waajibkeena gudanayna fulinayna siyaasadda dowladda Koonfur Galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxaan har iyo habeen idinkugu imaan doonaa meel walba aad idinka joogtaan si aan idin dhiirigelino aan garab idin siino oo runtii waajibkeena guud oo ah in dalkan oo nabada aan dadkeena gaar. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa bogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona ballan qaaday in maamulka Koonfur Galbeed uu si buuxda u garab taagan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee USOM isagoona ku dhiirigeliyay inay halkaas ka sii wadaan ciribtirka dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. guud ahaanba ciidanka qaranka ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna taageeradaas ay naga helayaan wadankan oo nabad ah ayaa na anfaco wadankan oo maxaa la dhahay Soomaali ee nabad ku wada nool oo isjecel ayaa na anfaco. waxaan rajaynaynaa runtii inaan goordhow guul aan gaarno midnimada Soomaaliya aan soo celino dalkeenna uu noqdo dalalka adduunyada dalxiiska loogu yimaado oo dad fara badan dibadda shisheeye badan ay yimaadaan oo maalgashi ay samaystaan Soomaali badan oo dibadda joogto. boqoshada mas'uuliyiinta ay ku tageen gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan halkaasi laga xoreeyay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab.